الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أنواع العصبات وحكمهم وترتيبهم. عصبات كالنوعية أيهين قيبه ذو معنى أيهين إيوه أحكامت إليهين إيه سيئك له الريان حكمهم أي أحكامهم مفرد مضاف إلى معرفته عمر. قال النظيم رحمه الله: وعاصب بالنفس ذو الولاء أو ذكورة من الذين قد مضوا وزوج والأخ للأم سثنيا وعاصب بغيره من أوتيا نسبا بفرد وهي أنثى عصبت كل بمن به التساوي قد ثبت وبنت الابن عصبت بالنازل إن لم يكن الفرض لها بحاصل وعاصب مع غيره الشقيقة مع ابنة كذا مع الرفيقة حكم كل. نعم. وعاصب عاصب بالنفس ذاتديس عاصب كأه ذو الولاء وي ولم يصاحبه أو مس ذكورة وي أو من الذين كوي ذكورتاسي قد مضوا تجن والزوج ولكن الزوج زوجكي إيه والأخ للأم استثنياء لولا صلى الله صور ريبي. نعم. وعصوب من دسي حلب عن كسو مرني ولذا دحشا لبا قاب أي مرتا ولا كل دحشا فرض انتي عصو مرنوع يقول كل دحلو تعصيب انتي عصو مرنا بيان صو شاقني وحنينا ما شاقني وحنينا وحكا شاقني كليا صوماهين زوجك ايوه والنادر واي او صوماهين أي حتى عصبة كجران آباء أو حتى عصبة حتى وقلها وجدا marka dumarka un baa farda ku dhaxla boqolkiiba 99 walaali aw masagna wiilkii orlameedka masagna lama sheegin waxa dhamaa koos ku dhaxla wax leeyahay casabanimo. waxa soo badan darsigii habeen hore 15 nin waayaan soo raga sheekhu wuxuu ku yiri 15 kaas nin waxa ka soo reebtaa الزوج والأخ للأم وأي عصا من رضا. العصا حارنا wax ka yimaado xaq aabaa ka yimaado hooyo ku yimaado mugtah ka yimaado dhinacaas kuwaas ma kala rabaya zawjku asagoo wuxuu ku yimid macnaha nikaax ku yimid iska dhaf qaraabanimo ku yimaado qaraabada arabna yaa oo wali casku saar xaq aabaa 13 waaye marka mid kamida un baa lagu daraa oo walaa ah sheekana guurib u socdo waasiyo binafs dul walaa mujida mu'tiqi waaye أعتقد أكيد دون شرط أمبولية هاي أدونكي وقف أي أدون حرية قرابتي سيبان لواي أنت قرابتي الجودان كم حرية إيمانية قرابتي سمكي لوايو أيو إيمانية كي وحرية عصبني ما كنا على يامك أسا قرابة وقت أسا قرابة عصبني ما كنا قدر مرك طوال يسد حراس نومي وحواي وويلكي بيتك ويلكيسي كوسي دلي واشي رسومه أصلي فرع أبيه أبوه ولاله ويلشي أو سدح كإيمانه عن كسر ريبنا أو كليئة الأخ للأمة كريمنا ولا كيميتك أبيك وياي بيك آباءها ساسويا. نعم. سدح إيه طبعا أي نقوليان هدي لقو درو لو يتهم هدي لقو درو المعتق عشان كورا كشتري كواس بالي هذا عاصب بنفسه الله ذاته بعصبك عد كلا عصب اسمه وكدغت معنا عصبك waxa laga ixtiraasiya عاصب بالغير عاصم على الغير كواس اي عصبنimadu waxa u keenay cid kale waxana laga wadaa hadii la afsoomali waxa laga wadaa wixii soo haray qaataan ahkaan deelihi warka doona waxa kamida wixii soo haray qaataan marka dul fardiga wixii soo qaato wixii soo haro ay qaataan hadii la waayo ahkaanta waxa kamida hadii la waayo qof oo dul marka qaad kulliga xoolaha kulli bi qaadaya marka qaad ibniga oo kale. naam warka doona insha Allah. وعاصب بغيره mid caasib ku ah غيركي asaga daatadiisa caasib ma ah cid kale u keentay macnaha man waa qolo uutiya la siiyey nisfi la siiyey bifardin fardi lagu siiyey وهي ayaduna أنثى ومدد أو أصيبت العصبية أو القرابية ما
كل أيا لقرابي وحا لقى بدل يا ضميرك وأصل عصبت ما كل بمن أيا لقو عصبي من كاسو التساوي سناسو قد ثبت أو سقنا هذا السناساسي به أي فيه من كدحديث يلا وعرات عظيم بكل جنابك في المركب عاصب بالغير وحالة وضع رجع يدمر كاي دحمرتا رجع يدمر اسكو درجه gabadha oo ka dhintay meedka yaa ku daraja wiil soma wiilkaas baa casabeynayo xoolihii ayuu la qaybsanaya macnaheedu marka lidakarin mithlu hadith taas laga wada hadduu joogo mathalan gabar iyo hal wiil ayaa jooga xoolihii waxaan ka dhigaynaa saddex madax kana saddex madax laba madax waxaan siinaynaa wiilka hal madax waxaan siinaynaa marka wiilka waxaan ka dhigaynaa laba qof aan ka dhigaynaa boqol kun waxaan u qaadanaynaa saddex qof laba ka mid ah wiilkan siinayna hal waxaan siinayna gabadha afan soo asal laga wadaa lidakari mithlu adana tahay gabadha meedka gabadha dhulka meedka yaa la qaybsanaya xoolaha wiil la siman soo waa meedki ku aabiyo ku hooyo tahay wiil la siman oo ku aabiyo ku hooya waa gabar meedka ku aaba ah wiil ku aaba ah lidakari mithlu حسب شخوضة فكل يوم وهي أنثى وددك أو عصبة بالعصبية ما كل ضمان بالعصبية بمن قفضة لو عصبية به قف أي حولها لقيب سنة من كاسو التساوي سناسو قد ثبتت أي سناتي بها أي فيه من كان حديث هو أنت سواد هوا قف معنا للسنوي كدرجة هذا مركز يبدي أو دلميتك هذا جوجو ويل أو لو لكن يعصينا اسكو درجة معنا ما صح اسكو درجة ما اتصالك وين بالتساوي لكن مسألة لو حاجة أو لا صوري وتشيخ نعدد لجسمك وبنت الابن عصبت بالنازل روح كمتها من زيادة النادم على الرحبية وبنت الابن جي عصبت والله عصرها وحوله أي اللقب صلاوي بالنازل wiil hoos u dagay oo aan la darajo ahayn waa goormaade in lam yakun farad haduusan ahayn bixaasil mid xasilay lahaa bintadaasi marka qaar waxaa dhici karto qof wiil aan ku darajo ahayn inuu xoolihii la qaybsado taas buu ku sheegaya marka bintul ibni مثلا waxaa jooga wiil nin baa dhintay waxaa jooga marka gabar uu yahay awoowe wada gabadhaasi aabaheedna waa dhintay ilaa waa wiilkiisii mogtahay bintu ibnu waa soo hadduu joogo dii wiilkaasi ayadoo ma imaan karto wiilkii waa dhintay awoowihiyaa mar damba dhintay xoolihiisii waa soo marnay maro badan baan soo marnay markay tahay keligeed maxay qaadanaysa nisfi haddii markaasi uu la joogo wiil ku darajaa uu la qaybsanaa soo hadduusan joogin nisfigay qaadanaysaa haddii wiil marka darajo hooseeya uu jiro muxuu noqonayaa ibni waa mogta wiil hoose waay ayada maxay u tahay eeday u tahay wiilkaas eedaday u tahay uma soo dhawaa karo laanna fard bay qaadanaya mogta nisfigay qaadanaysaa in lam yakun fardu lahaa bixaasilin waxaa la mida marna waxay qaadanaysay sudusay qaadanaysa soo goorma waxaa joogay gabar oo dhalameedka iyo bintul ibni waa soo darsigii xalo waay ya markaas maxay qaadanaysay sudusay qaadanaysa haddii uu joogo marka wiil hooseeyo ibnul ibni ma u dhawaa karo ilaa farad ay qaadanaysaa mogta labadaas suur uma dhawaa karo laakiin haddaysan farad qaadanayn uu qaraabeynayo xoolihii buu la qaybsanaya waa goormo matalan ba waxaa joogta laba bintaa joogto bintayni laba gabar oo dhalameedka maxay qaadanayeen ثلثين bay qaadanayeen xoolaha saddex meelood laba meelay qaadanayeen soo cashiga xalaan soo marna u ahaa waxaa kaloo jooga bintul ibni gabar uu yahay meydka awoowo u yahay ayaa jooga markaasi haddii uu la joogo waxaa marka qaraabeey oo xoolaha la qaybsanayo wixii soo haro wiil ayay ku darajaa oo ah ibnul ibni iyo wiil hooseeyo ah ibnul ibni uu la qaybsadaa xoolaha markaas gabadha labada gabar waxay qaateen bay qaadanayaan
wixii soo haro waxaa qaybsanayo gabadha uu yahay meydka awoowaha iyo wiilka uu yahay abkowga uu yahay mugta aydan ay doonta kaas baa la qaybsanayo mid ku daraja waa lamid kaas baa ula mugta kaas baa ku sheegaya marka wa bintul ibni wasiyad waa la casbaya xoolaha waa la qaybsadaa بالنازل بالابن النازل والهوس وطها ايدو لكن waxaa shardiya in lam yakun fardu Allah bihasil hadii farad qaadanin waa ila binteenka mugtay agaraacaya waa ka doona binteenka way xijaaban waa ka doona insha Allah taala لكن صورة معناها مسؤولية يعني وعاصب مع غيره الشقيقة مع ابنة كذا مع الرفيقة haddii uusan wiilkaas ahaa lahayn waa walad mubaarak waay wiilkan hadduusan ahaa lahayn waa la xijaabi lahay mugta binteenka arki doona gadaal buu noo keenaa insha allah waxuu dhihi doonaa wa binta alibni xajuub bilibnatayni haddaysan uusan joogi lahayn wiilka ya gabadhaan waa iska bixi lahayd wiilkaa badbaadi marka waa ibnu mubaarak meesha dhaan waay fuqaada wiil barakaysan waay ila gabadha badbaadiye mugta oo dhici rabteen نعم وعاصب marka waxaan niri caasib bil ghayr hadii lagu daro ba waxay dhex martaa dadka isku darajada ah gabdhaha isla dhashay iyo wiilasha ama meedka ku ahaada hal dhashaan ama meedka dhalo kuwaas waxa la dhahaa caasib bil ghayr wixii ay helaan bay isla qaybsadaan wada lidda kari mithlu hadii loo tahay caasib bil ghayr baa la dhahaa haddii uusan wiilkan joogi lahayn wiilashan gabdhaha wax badan bay qabanayaan soo nacam caasib marka macalqeedu ku sheegaya wacaasibun caasib oo maca gayrihi ashaqiiqatu wey shaqiiqadii alwaqta shaqiiqa waxaa la mida ukhta liab baa la mida sheekh uusan noo sheegin maca abnatin xaalay ahaatay binto la jirkeed kada waxaa la mida maca rafiiqati midii saaxiibka la ahayd للابنة جبنا وبنت الابن نعم عاصم مع الغير واحد حمرتها قبلها عاصم بالغير واحد حمرتها ويلش ايوه هجا معناه ويلش ايوه دمرك اسكو درجه صح كوان دمرك بس حمرتها مفروضه ما سوف مع دمرك حمرتها وجبر با جوجتو meedka ku aabayo ku hooya iyo gabadhiisii iyo gabadhiisii ayaa joogto ama waxaa joogto gabar meedka ku aaba ah iyo gabadhiisii waa la mid waxaa joogto ayadana bintul ibni baa joogto waa la mid bintul ibni ayaa joogto ayadana la mid bay noqonaysaa bintul ibni haddii la joogto ibnu haddii la joogto ibna kuwa marka waxaa la dhahaa caasim maca alghayr ayaa la yidhaahdaa marka bintidu markii ay qaadato nisfi bintu maxay qaadanaysaa nisfi ay qaadanaysaa wixii soo haro ayay suganaysaa gabadhaan meydka ku aabayo ku hooya ama midda meydka ku aabaha ah saas baa laga wadaa nacam bintul ibni nisfi ayay qaadanaysaa gabadhaan meydka ku aabayo ku hooya maxay qaadanaysaa wixii soo haray suganaysaa marka waxaa la lahaa caasim maca alghayr baa allah gabdhahay dhex martaa marka waa fahanaysa nacam وحكم كل أخذ ما يبديه الفرد والسقوط يلتقيه ينتفي الباقي وزاد المبتدى لعوز كل حيث كان مفردا ايش waxa lagu sheegay ahkaamta ceelada casabada lagu sheegay casabada maxay ahkaam leedahay sheekha noo cadeynay fiir marka وحكم كل dhammaan xukunki caasib bin nafsi kii kaligiis casabada ahayo meeqay ahayo 10 iyo 3 ayuu ahaa 10 iyo waxaan ka soo reebnay 10 iyo 3 waa 5 waxaan ka reebnay al-akh iyo zawjka ka hodan al-akh al-um iyo zawjka 10 iyo 3 hadaas iyo ya mactan mudara waxaan ku dartaa iyo caasib bigayrihi ayadana waxay dhexmaraysay ragga iyo dumarka isku darajada ah iyo caasim maca alghayr oo dhexmaraysay dumarka intaasoo dhan
كل محاوله من الاقسام الثلاثه لما انتم حقوقكم هو اخذ ما يبقيه waxa uu soo reebo qaadashadii way dul fardiki u saaxiibka ahay waa fardiga hadana ma fiirin mid baa dhintay nin baa dhintay wuxuu ka dhintay xaaskiisa iyo gabadhiisa iyo adeerkiisa aabihiis ku aabe ku hooya adeerku waa maxay waa casaba soo maaha waa bara doonaa wuxuu ku jira 13 mugdi dibna waa bara doonaa oo aan uulaahum martaba dib baan u imaan insha Allah taala ay gabar zawjo hadii ilmo ay joogan maxay qaadanaysaa tumul qaadanaysaa binto hadii ay tahay kaligeed maxay qaadanaysaa isfi qaadanaysaa xoolaha marka hadda waxa ku laba farad baa ku jira tumul iyo nisfi tumul muxuu ka baxaa xala shaqada sideedo ka baxaa marka waa hal loo soo dhigay sideed hal kamida macnaha sideed qaadanay zawjada qaadatay maxaa noo soo haray toddoba noo soo hartay toddoba maxaa macnaha marka sideed maxaa nisbo sideed afar waxa qaadanaysa bintada qaadanaysa xooliyan qaybina boqolku kala qayb macnaha sidii isla meeshii maxaa soo haray marka saddexdii marka maxaa diray marka waa xukmu kulli akh dul fardiga wixii soo haro ya qaadanaya marka adeera qaadanaya marka cid kale oo ka soo bala mugta ya qofkii faradka labaad fariisa qaato wixii soo haro ayuu qaadanayaa kii casabad ah oo qarabada iska ah afana soo waadix والسقوط دعيتان أيو يلتقيه لكل ما إن ينتفي الباقي وحي صهر هدي أنفوموي باقي تسجل معه مثال حكيم قولين دي عند عبادك هو دعايا لك ابن مدعو الموت هذي أبكي سلو كلا حالا لما سوء إشارة ذلك عن دعين حالا إشارة غير كميدا رسي حالا مثال مثلا بقى قبر بعد متى بكدمت نين كيدي iyo walaasheed ku aabiyo ku hooya iyo walaalkeed ku aaba zawj hadii ilmajrin wuxuu qaadanay nisfi ukhti shaqiiqana wuxuu qaadanaysa walaalmeed walaal ku aabiyo ku hooya nisfi qaadanaysa waxa ku jira marka farta waxa way lawan waa nisfi lawan hal nisfi bas hal nisfi xoolaha laba oo kala barayna bariya qaadanay barna ya qaadanay ودي قايل اسمه ولكن ميتك اباه واسك بحاس او صار وتقع واضح ما وجد marka hadii dul fardiga markuu wixii shaqadii wax la waayo iska tagaa asag akhli abadooda si soo marka wazaabaka inta sabaka waa mushtarak saddexda qayba wazaada al-mutadaw wajida kii hore kii koo wadaki aasib binafsi waay عاصب بالنفس ودار ليه بحوز كل أي كل إرث حولها دم حابس إنه كل أو قوم أوقاته حيث كان مفردا مركب كلبيس طبعا يسد هذه آشة حتى ظل معتقاته هدي واحد كسر كيلا واي حولها كل وقادنا يا هذا كل وقادنا نعم لكن قبلها دي مثلا ما قبلها قبل أيضا دي نسبي هذه كلها نسبي من قادنا أساس كبحي بقطع هذه بديهية ثلثين بقادنا صح أي فرد كذا بقاصنا لكن كان ما دام واحد فرد أوصل لهم هذه كلها يسحق سكيل واحد من بقادنا يا تابرك واحد قول الأه ثم يسد هذه قفوة قلوة أصومر أولاهم ابن فابنه ثم الأب الجد والأخ ولا ترتبوا ابن أخ فالعم فابنه ومن لا بعاسب الحج به بمن وابدأ بتقديم هنا بالجهات الغرب ثم بعده بالقوة فمن بأصل كما يقدم ألا يدلي بأصل منهم نشأ الله المش قاعدة مهمة أول هذه القاعدة لم يذكرها صاحب الرحبية هذه قاعدة أدب في عمل والوفاء ما يبحث دم بلغها بلقي وسيسهل في المركب أولاهم عصبة بالغير فهو نسيت هذه عصبة مرنوع كان أقوه الرجل ابن وويلكي فابنه ويلكي ساكسيه ثم كذبنا الأب آبه فالجد كذب أووه إيو أخ وراكي
ولا ترتب حكلا هرمرين بينهما وغدر بين الجد والأخ كدر جوا كدبنا أفر فابن أخ وي ولكي ويلكيسي فالعم أذركي وكذب إيه فابنه ويلكيسي ومن أدلى دوج مكة مراتب العصوبة يا الله مراتب العصوبة مراتب العصوبة وستة بيت المال كادي أوصل نقول منتظم من أن جوجين البنوة هدي جوجان ميتك المهيسة البنوة يا هدي جوجان مثل الويل باجو قبله درجة أخرى يسوع وحكى له عاصمنا وقال كذا مجرم وقال مركب أبحث واتقيا لكن وقرمات عصبني ماذا كتجا شات كانوا قادنيا فرضكم هذا مركز أنا فرض هذا أقول عصبني ماذا ولا يطور ويلكاك أياك حب بدن صبا المياك حب بدن هذو ويلك يجوا عصبني واحد مقاضي كذا وأرضية شد سؤالي يا حوليه أنا شد سؤال قادنيا وحصوها رن أديك قادني وجده لكن باب كان عصبني ماذا وكعرّيا إلا واحد حسب الله قبل صبا فرض إياه تعصيب عصبني ماذا دمرك أيوك عرّيا مرك حاجة فرضك هذه اللي مش صومر لي هدي المجوجان أبو محوقاته سوقاته لبركو مرك معك شيء فابنه هدي ويلكي لوايو درجة يس ابني جيب أيمانه صبا مرك البنوة مرنا درجة الوضع الأبوة أبنمو الأبوة أبنا ولا بدوي هديسن ابني هدوسن جوجين يا بوسكي أبا أيمانه مرك صبا بنوة هديسن جرين أبا أيمانه يوم أنتوا أبا جو وحكى له أصول وكما أو إيمان كريم ولا لا إيمان كريم وجده عشان أفهم تمهم واي يعني حسب حالي أنا مكي لأن أنتوا أصل يفرع يا جوع هنا نكت أصل يفرع يا جوع هنا نعم كذب مدة سدحات البنوة الأبوة صح سدح الجدودة والأخوة أي هل درجة واي أو هي ولا لها وأسكت درجة واي شبه كوري ولا ترتب بينهما حكى الهرمري اسكو هذا درجة واي أي مركز قاعدة بينهما دونت الجد مع إخوتي بابو شيخ كيني إن شاء الله يا اسكو هذا درجة واي أو تجينا اسمه حجابا أو تجينا إن شاء الله تعالى مرتبة أفراد الله بنو الإخوتي دي ولا المركي اللي وايو أي الميس ما كان صلاة يا ولا أرجو مركي أي واتجاه وقول مركا واصل اللي اسكو حجابه ابني حجابيا ابي كل او عصبتك حجابه معناها عصبني ابو كل حجابيا او هو يا والله هدي جوغان waxa ka dambeey ibnigi iyo adeer iyo xijaabiya taas way macna marka hada baabkan faanto xijaabkana waa fahmaysaa si la isku xijaabiyo baabkan xajbigu muhiim u yahay ina faantaan isku day insha Allah fadl akhi mid sharaado maxay al umumatu adeernimo درجة شنادو ثم بنوهم وجدا درجة اللحاد ثم بنوهم المهدي غير هدو جوج المسلمية مانا صح إجابة يسوى ماتس شيء غمرك قاعدة قد بوكسي لقي سمك ومن أدلى بعاصم الحج به بمن ومن غفكي أدلى سودو هذه بعاصم عاصم كسودو هذه حجب والله حجابيا هو من كاسي به بذلك العاصب عاصب كابالغو حجابا بمن أي بقطع بمن أي بقطع بلا خلاف معناه إلا أولاد الأم يا الله سلامة إلا أولاد الأم شيخ لو قاعد نوشا قاعد لك وضح وياه قفك سوء دوادو قفك أصبح حجاب يا أبا أيوين أقصد واتا هويو مي ما كرت أيضا هوي جبت أيوين أقصد واتا أبا أوجو ميو مثل هو ما كره رامي قفك سوء هدو جو وحجابه وطورة عايزة صح وعلى نصر دواشيق وصنو شيء إلا أولاد الأم ولا لا ميتكم هويا يكسد وادي على صبرنا هويا صبر هويا جوكتي دعشة قرنيا
إلا أولاد الأم. قاعدة وما قاعدة قبر. نعم. قاعدة ما دمت حقوق نبني الفيديس أصل عدي وكل من إلا بشخص ينحجب به سوى فرع لأم ينتصب وجده. الفيوك عدي. قاعدة كده. وابدأ بالله بتقديم هرمرس هنا ميشني بالجهة جهو كدمنا فالقرب دواش في الدرجة ثم بعده بعد القربنا بالقوة هرمري فمن غفكي انتما نسبة شاكتي بأصلين لبع أصل يقدم والهرمريا على الذي كي بالغ هرمريا يدليك سودوانيو بأصل أو منهم كبيرا من العصبة meeshan waxaa lagu sheegayaa marka hadday kulmaan ka waran dadkan ahlu casabada baa kulma wiilkiyaa joogo macnaha dadkii dhammaan bay joogaan bunuwadii baa joogto aabbihii baa joogo jad iyo walaalaa joogo maxaan samaynaynaa waxaan hormarinaynaa wabda bitaqdiimin huna biljihaad inta kale wala xijada soo nacam jihaad u horeysa waa tee ilmaha kuwaas inta kale xijaabaya macnaha kuleeyahay حجبي مش قاعد ونشي حجبي مهم قاعد كعلنا نصعد حاجه هنا جهادي المها جوت جهه البنوه انت كلا واتقيا هذا بك وعرنا هذا يا فرق وعرنا جهه الابوه جوجته عصبي جدي ورائي واتقيا هذا اسكو ضف وحصل واتقيا حاجه وراليه جدكي انت كلا واتقيا قصدي بك جهاد هربنا بكريه فالغرب haddii ka war isku jaayin ka war isku jaaway مثلا بواحد جوه جهة البنوة الابن ابن الابن لو وصل سويمة اسكو جاوا صح إلا هو المم وقت ولا بيتك بيتك في عين وقته بعدنا هنا بيتك يعودوا هنا فالقرب يعودوا ابنك أنا هو لا يتقي صح كسب العجابية وجد سيأكل الدوين أكل هورنينا هديك ورا اسكو جهو وانا اميت كان واسميه على سبيل المثال ويقول ثم بعده بالقوة سيد أي أكل أود بديه تعشيق النومي تالي يسوع فمن بأصلين كما يقدم على الذي يدلي بأصل منهم ولا عليه واسكو جهو جهة الأخوة واسوه ولا جهة الأخوة هذا أنا ميتك وحويان قرب ويان لوضع دويهين اللي هالفرع ويان هالآبا والغير لكن هديك الأود بديهين مثل ما مدى ويهي ميتك واكو آبي وكوهيو إذنه واكو آبوي يعني الحجابة إذنكو آبا الحجابة كسوة تقيا نفر صح شبه بك فمن بالأصلين كما يقدم كي لبضا قرب لها لبضا قرب هو أبوه استا عن قربنا على الذي يدلي بأصل منه من العصمة يا كي هل قرب لها بلطوري يا مركب قاعدة في العمر قاعدة يا حسوس حاشية بقرية أو ماردينية بيت كان يعيدوا يحكي لي جبت كتاب لي رجع بريء سو قاعد جبت بيت كان أي ما ذمك هو نور النبي رحمه الله تعالى سؤال مركب انت مركب وباب الحج بواي نعم وقدرنا واحد يحتاج الى سؤال سيدار ما يا وحيرا قدرينا وحير قاعدين وحيرا قدرينا الحج انت اصلا مرني اللي هو حاضر حجابك واسيد الله كله الرئيس صبر سيد الله كله الرئيس حبيبي دقيقه صبر كبير marka xajbiga hadda midka aan hadno waa xajbi xilmaan waa qof dhan wax shaqo tuurayo xajbiga laba qayb oo noqda xajb bil awsaf waa kii aan soo marnay almawaani qofkii qof dilo oo qofku dhaxlaya dilo ma dhaxlaya kaas waa xijaab laakiin xajb bil awsaf hada tilmaan baa ku qoto mawt dilah ama waanadi aan soo marnay iyo waxa la yiraahdaa حجب بالاشخاص اشخاص باقف حجابي لكن لبو نقضاء
من النقصان بكرة يا قفك نصف أو قولها هو على كينا أصبر رسول نعم كاس حد بنقصان والله كاس لك هل من وعن قال لنا حد بحمان قفك نحاسة قل إن لو دي والله الجامعة نعم هدي أوجد ولا الميت كو أبيك هويا كيكو أباي واتقيا سمع هذا صبري وها صبر هذا منو هدي جوجان أتقيا أبوه جوجو أبا جوجو كو كلا تقصي معنا هي زمك وكنت بيقينا واحد جوج حجاب أو حجاب أخا ولا لك مطلقا هذا ولا الميت كو أبيك هويا بيتكو أبا بيتكو هويا وحال حجابا بابن ويلكي أو ابن ويلكي كوسي دلي أو أبن أبا وكان بنيا هدي أو جوجو ويل أما أبا أو جوجو والما مري وصوم جوجو درجة حق جوجو درجة سدح سوين البنوة الأبوة وكاسو إيمان يسوع قاعدين أصاب النوى قاعدين أصاب النوى هي سيسو عادنا ولا حجاب كريم إيوه حلقوا حجابه ابن ابن أب هذا وجب واجب أبو واصغناري لعم من أديركي أديرنا وحلو إجابة كوان ابن أب وفهم كرتا إلا هو اسكو درجة ما هذا اسمه كوان بوجوه كوان وجوه مكرا أدري مكرا وأكون له إجابة إيوه وابن كل دمان المهودي الأخ ابن الأخ ابن العم كوان صنع حجابه ابن الابن اللي اسكو درجة ما هذا أب هدي أبوه محجابي يقول لي ماشي مكرا ما هو ما فهم والجد أووه مثلهم مثل الابن وابنه والأبي بولا مديهي في حجب أولئك وحجاب كوذا والله يوحلو علميا ابن الأخ عم ابنه بالو علميا كوان ضمبي عم ابن العم ابن الأخ جدك حجاب معنا اللي هو صح جدك حجابه إلا أن جدك وحكو درجاي أخا صبا أخا ابني يسوي حجابه يا صبا ما كدم بيان هذا ما كدم بيان هذا صفا وأنت صبر وقدر حدنا واحد بحجاب به بالجد هذا حدنا على كل شيء يا المها ميتك هو يا حجابه واحد بحجاب وحجاب به بالجد إيو ضمنة الابن وحكو حجاب طلبلاس ولد الأم ميتك ولا لها كهويا وحالو حجابا أووه إيا قبضع بنت الابن قبضع ميتك إيها أووه نعم وبنت الابن الحجوب بالابنتين وبنت الأب بالشقيقتين وحجب حجاب وحجاب بنت الابن وحكو حجابتها بالابنتين اللبدي قبر وبنت الأب وحكو حجابتها بالشقيقتين وقال ما هذا بشرط إن لم تعصبها لبدا هدي عن العصبين وي أنا قاعد مربع عن صوم النوال وحاجة قبر أو دلميتك قبر أو دلميتك قبر أو يأوي أي جو طبعا ويلكي سواء انت ويلكي أصبك انت قبر أو دلي أيا نينكي أوي أو هاي بعد انت هدي أي تاكلي بحي قادنيس نصفي هدي الجوكت هل قبر أو دلميتك هي قادنيس سدسي قادنيس لبد قبر أو دلميتك هدي جوية وحجامية هذا نصف وحجامية أجي وحشبية إن لم تعصلا ويلكو درجاها دو جو وابدنيا أبوض المواروة يا نعم ويلكو درجات وميتك أبوها أوه كلا جو كسو بدنيا كبدو مركي ثلثين قاطن ويسوها رئيس الغيب سريع بدك مثله هذا النقطتين سيدا سوكا وبنت الأبي أخت الأبوة بيتك بنتي ولا شيسكو آباء يا جوكتو إيا لبا قبر أساقا أو إيا لبا قبر أو كو آب إيا كهويا بيتك ولا شيكو آباء إيا لبا قبر أو كو آب إيا كهويا أيا جو هدي أي تاي أختان لأب قبر كو أميتك كو آباء كل هدي تاكلقين هي قادريس نصفي قادريس هدي أي لجوكتو قبر بيتك كو آب إيا كهويا أو هل أهم هي قادريس خلاص هو قادرين
haddii laba gabar ay joogaan oo midku ka abi hooya xoolahay ka xijaabayaan laakiin hadduu joogo wiil ku daraja walaal kala joogo oo wiil ah oo ku aaba oo badniya labadan gabar waxay qaadaan tuutiin Soomaali wixii soo haro ayuu la qaybsanaya illa mutaasaba inta faana soo qaacadaas la qabto beedkan ku khatimayna insha Allah وبالمستغرقات فرضا ذوي عصوة محققة لا انقلاب فقط وحجب حجاب وحجاب